intuu jiifay ayaa feedhiisii intoo laga saaray ayaa laga abuuray Xawaa. markuu kacay buu arkay ruux haweenaya oo agtiisa taagan. markaa buu ku yiri ayaa tahay buu ku yiri adigu. markaa bay tiri haweenay baan ahay. markaasuu ku yiri maxaa lagu abuuray? markaasay ku tiri adiga la ka abuuray. aadam calayhi salaam markii ilaahay nabi aadan uu abuuray qalbigiisii uu xasili waayey. deedna ilaahay caza wajalla wuxuu u keenay maaragtaan hurdo lulo inuu seexdo. intuu jiifay ayaa feedhiisii intoo laga saaray ayaa laga abuuray Xawaa. markuu kacay buu arkay ruux haweenaya oo agtiisa taagan. markaa buu ku yiri ayaa tahay buu ku yiri adigu. markaa bay tiri haweenay baan ahay. markaasuu ku yiri maxaa lagu abuuray? markaasay ku tiri adiga la ka abuuray. si qalbigaagu uu u xasilo oo istiqraar aad u yeelato ayaa la abuuray oo aniga min ajligaaba la abuuray bay ku tiri. qofka bini aadamku lug kaliya iskuma taagi karo. labada lugood wuxuu ilaahay ugu sameeyey labadaba inuu isticmaalo weeyaan qofku. qofka lug ay ka maqan tahay waad aragteen oo waa laangadha ayaa la yidhaahdaa. nolosha bini aadamkuna labadaa bay ku dhisan tahay. nolosha adduunyadu zawjaynkaa bay ku dhisan tahay, laba nuuc. cirkii dhulka ayaa ka soo horjeeda, habeenkii maalintii, kulaylkii qabowgii, dhalashadii dhimashadii, labkii dhidigii, faqiirkii ghanigii, gaalkii muslimkii, abaartii barwaaqadii, masiibadii farxaddii. ilaahay baa nolosha sidaa ugu talagalay. haddii dadka adduunyada ku nool rag keliya laga dhigi lahaana nolosha adduunku qiimo ma yeelateen. haddii haween keliya laga dhigi lahaana haweenku keligood noloshu qiimo uma yeelateen. marka ilaahay baa labadan isku sakhiray, iskugu talagalay, waana ilaahay baana markaa isku abuuray labadan. waxaana ilaahay uu ku sheegay haweenku ragga inay u yihiin dhar oo kale, ragguna xaasaskooga inay u yihiin dhar labis libaas. hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna baa ilaahay yidhi. dharku qofka bini aadanka laba faa'iido u leeyahay. faa'iidada koobaad uu qurxiyaa oo qof foolxun dhar qurux badan hadduu xidho dadku ishay la raacayaan ay leeyihiin war ninkan ama qofkan dharkan quruxda badan la sita ku muuhaa baa la odhanayaa. qof qurux ilaahay u dhammaystiray haddii isagoo qaawan uu bannaankaa marana waa laga cawdu billaysan. marka dharku qofka bini aadanka uuna qurxiyaa uuna asturaayo ceebtiisuu ilaahay ugu qariyey. oo xadiis alqudsi ilaahay waa kii lahaa kullukum caarin ilaa man kasawtuhu fastaksuunii uksikum baa ilaahay lahaa xadiis alqudsigii. dhammaantiin baa ilaahay yidhi waad qaawan tihiin ilaa anigu kaan huwiye een marada aan ku qabto mooyaane. aniga iga dalba baa ilaahay yidhi maro inaan nigu qabto ni huwiyo. aniga markaa dharkay nigu qabanaya baa ilaahay yidhi. dharku labadaa sifa ayuu leeyahay markaa. marka gabadhana waxaa la sheegay inay tahay ninkeeda inay u tahay libaas, asaguna inuu xaaskiisa u yahay maaragtaan libaas. labadaa khasladood weeyaan. waad asturaysaa oo ceebta ninkeeday qarinaysaa. oo haddii ninkayga uu noqdo nin gacan adag ama nin akhlaaq liita ama nin dabeecad adag ama nin gacan adag ama nin hadal xun hadduu yahay way asturaysaayoo ceebta ninkeeda way qarsan. waa gabadha saalixadda. hadduu maaragtaane ninkeegu waana libaas wuuna ku qurxinayaayo adiga maaragtaane gurigaad joogtaa dhashii baad u haysaa, isaguna baahidaadii dibadda aad ka lahayd buu kuu soo daboolayaa. addunyaa mataac
وخير متاعها المرأة الصالحة بالنبي قول عليه الصلاة والسلام الدنيا والراحة يرويان ونلول يرى لغو راحيستو راحة الدنيا نوحو النبي كل شيء إن يتحقبد ونكسن صالحة دا لما أرن راحة الدنيا والعق وورشدو وقرية دادير ومادو مده النبي قول انتاس قل متاع الدنيا قليل بل نلوش الدنيا وإنير راحة يرى الدنيا تعالى نوحو النبي كل شيء وقبد ونكسن ويان خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وما لك بالنبي عليه الصلاة والسلام أوينك توقو خير كبدن لبو نبي واته واتنينكيدو مركو إيغا كفر حساب رسولك يري مركو نينكيدو إيغو هذا الكفر حو كمغلا وحا كفر حايو كأركا soo dhaweyn uu ku farxa ayuu kala kulmaa haddii uu amrana buu nebigu amarkiisa way adeeci oo way yeeli waa wixii macruuf ee sharciga islaamka waafaqsan baa lagu yeelaya wixii munkar ee macsiya lagu adeeci maayo hadduu ka maqnaadana buu nebigu yidhi ayaduna waa gabadh dhowrsoon oo ilaalshan wixii ninkeedu u dhiibtana usii haysa buu rasuulku yidhi marka haweenka runtii nolosha bini aadamka meel wanaagsan baad ugu jirtaan oo ogaada meel muhiim ah ayaad nolosha noogu jirtaan diinta islaamkana makaanada weyn bay diintu ina dhigtay innaka basharka adduunyada jooga nolosha waxaad ugu jirtaan warshad baad tihiin inninku maanta warshad waxaa dhal adduunka dhalanayso dhan inninka dhalaya waxaa dhal koraysa inninka korinaya waxaa dhal la tarbiyadeynaya hooyaa tarbiyadeynaysa hadday gabadhu hagaagtana baa la yidhi dhasha inuu hagaagi hadday gabadhu ay xumaatana dhasha ay naga xumaan marka dugsiga koobaad ee ilmuhu uu soo maraa maaha aabbo ama maaha macallinke waa hooyada weeyaan hooyo wanaagsan bay culimmadu leeyihiin dhasheeduna way wanaagsanaan luqadan aan ku hadlayna af soomaaliga waa luqadii hooyaa la yidhaha luqadii aabba lama yidhaahdo maxaa loo odhan waaye waa luqadii aabbo oo luqada hooyo loo yidhi laanna ilmuhu luqada hooyaduu bartaayo luqada aabbihii ma barto oday soomaaliya hadduu guursado naag waddankan u dhalato kukuyaa tirahdaan miya qabaa'ilka ku nool luqada hooyadii unbuu baran ilmihii luqada aabba way ku adkaanaysaa inuu barto halkaa waxaan ka fahmaynaa marka dugsiga ugu horeeya ee dadka wax soo bara ama dadku ay wax ka bartaan waa hooyada weeyaan waa macallimad waa dugsi waa murabbiyad waa warshad waxa ilmo dhalanayoo dhan inninka calooshiina baa ilaahay ku dhex abuuraa يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث بإلهي أبورك بن آدم كمرك لغا ورميي في بطون أمهاتكم بالليل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لمدهن أبياش علوش ودا لنقو أبو راي وحا إلهي شيء علوش هو يمكن أيا إلهي نقو أبو راي مرك لن أبو راي ولي بصدح مقد هوستو دا أيا بن آدم كان إلهي كسو أبو راي caloosha hoosteedu waa mugdi weeyaan madheerta hoosteeduna waa mugdi weeyaan riximka hoostiisuna waa mugdi weeyaan saanic kasta oo wax samaynaya meel iftiinay la doontaan waxay samaynayaan laakiin ilaahay waa khaaliq weeyaan bal waa khallaaq waa abuure weeyaan ilaahay caza wajalla meesha bini aadanka uu ku soo abuuru ku soo qurxiyeyna waa meesha ilaahay uu yidhi saddex mugdi hoostooda ku soo samayna qofka bini aadanka shalaytadana laba masjid anigu jooga laba dhalinyaro ay timido walaalay haayeen way yaryaraayeen marka midna uu casaa midna uu madooba marin buu ahaa midna casaan buu ahaa carabad muudaysaba markaas yiraahdeen hooyo kaliya na wada dhashay aabba kaliya na wada dhalay ma sha Allah marka bal u fiirsada ilaahay qudradiisa eeg waa labada ubada hooyo mid ata wada dhashay waxa laga yaabaa kana inuu hooyadii raacay xagga maaragtaane kalarka midabka kana inuu aabihii raacay baa laga yaabaa toddoba ilmood baad dhalaysaan toddobada waxa laga yaabaa inay kala tabiicad noqdaan in awqaadda cimrigooga adduunka ay joogayaan ay kala duwanaato arsaaqadoodu inay kala duwanaato caqligoodu inuu kala duwanaado fahmigoogu inuu kala duwanaado laana ilaahay baa bani aadanka sidaa ugu talagalay marka dumarku basharka adduunyada jooga maanta adduunka dusheeda warshad hadday jirto warshada ugu qiimo badan jirta waa inninka weeyaan laakiin waa dayacanteen oo waa layna dayacay diinta islaamkuna waxay adduunka u timiday inay dumarka xuquuqdooda ay soo saarto oo shariicada islaamka
كهر جاهلية دي عرب قبائل كعربات واحد عجرتين ننكو لبها بلوضة ولا لا إنه جورسن كرو ولكن شريعة الإسلام كويتي مدو ويحرمتي شريعة الإسلام كوحيتي مدي أيضا ننكو إسلام تأبيه وكدنت آيدية وجورسن كرو شريعة الإسلام كويحرمتي شريعة الإسلام كوحيتي مدي أيضا ننك إنني أدلتو وكمر جودو وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وكي إله القرآن كأنه وشيء يتوارى من القوم ما بشر به من سوء أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون بإلهي قريش أما عرب زمن جاهل جوح الله شيء هدي لي هذا ننك قبض بأردلتين قبض كحمادان وأي وحي قرنين أي لها ما قبض بأردلتها وكحمانا يقفكو dadkana uu iska qarin jiray baa la yiri ama macaab ku haysan bas oo aasiba ilaahay yiri labada midun bay marka dambe noqonayeen inuu ninku yiraahdo gabadh baa ay dhalato ihaana uu ku haysto oo dadku ay dacaayadeeyaan oo la yiraahdo warwakan kii gabadha u dhalatay waliba gabadhii haysta ama inuu maaragtaan ay qaado oo noloshaba ku duugaba halka dadka oo maraya ayaa shariicada islaamku timido nabiga sallallahu alayhi wasallam wakiilaha من عال جاريتين حتى تبلغا أنا وهو كهاتين في الجنة النبي عليه الصلاة والسلام نك لبا قبضود إلهي وكد داخل لبا قبضود دلتي كوريي كرسين تودو وناجيي إلى أي كقان قاران بنبي ويري أنا نك جنة سدا لبا دا فرود اسكويهين فردا مردسدي فرد حدا الليل هذا سدا اسكو حيغان أيان أنا يسكو جنة اسكو نحي برسولك يري أفر قبضود نك ودلتي كوريي كرسين تودو وناجية تربيديينا أقوري أبو النبي عليه الصلاة والسلام نارتي قاشان وقال نغضان برسولك يدي مركز صحابة نك مدى يدي نك صدح قبل إلهي سيينا صدح دون والله مد بو النبي يدي نك لبا إلهي وسيينا لبا دون والله مد بو النبي يدي نك قبل إلهي وسيينا مد دون والله مد برسولك يدي انت الرجل ما شيقين أقو أهوانك النبي شيقيا ضد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدو وجعل هويني بهي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن عاص بن نبي مسكيت دحدي سكوي ديو يري يا رسول الله ددك اياد ugu jeceshahay markaa buu nabigu leeyahay Aisha ugu jecelahay buu yiri ragu jacaylka inii qabaan way sheegtaan laakiin ininku ma sheegataan Hawa ummuna Hawa markii la abuuray ayaa nabi Aadam bay malaa'iktu ay ku yiraahdeen Aadamow Hawa adiga lagu abuuray ma jeceshahay markaasuu ku yiri haa waan jecelahay buu ku yiri markaas Hawa lagu yiri Hawaayay adigana aadan dartii baa lagu abuuray ma jeceshahay markaa bay tiri ma jeceli bay ku tiri دائما طبيعه dumarka waa lagu yaqaanaa laana xishoodkiina badan ninka waa xishoodkiina badan waa mukr oran ma yaanagu ye laakiin xishoodkiina badan idan Aisha buu nabigu yiri Aisha dadka ugu jecelahay sallallahu alayhi wasallam عمر بن عاص هذا نقول أو يا كلا هذا نبي الله مركز أبيه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسؤال وحكى كان عمر بن عاص صحابة مجالس فربضان بوكيري نبي وضدك أنو يقول جعلي هاي مركز لقول وركف فرسو مركز وان ويدين مساجدكم مركز كل حويدية سوق نبي ودرس بحناية لأن مركز النبي يقول ضدك عائشة نقول جعلها هاي ما يدو مركز ومجد النبي الله ورجع نوجدا أبيه بانو جعلها هاي أبو بكر ثم markaasuu nabigu hadana Umar halka markuu nabigu marayaan iska aamuso waxaan ka baqay inuu saxaabadiisa ka ugu dambeeyo jecel yahay inuu iga dhigan ka baqay buu yiri marka haweenka in la jeclaada oo jacaylka loo qabo dadka horteeda laga sheegtaa nabigeenni baa inoo jiday kaleey salaatu wasalaam bal uu ku dardaarmay nabigu xaqiinu ku dardaarmay xaq ayaga kuma dardaarmay markuu dhimanay fi hajjatul wadaa iyo sankaraadkii markuu nabigu hayayba maalmaha noloshiisa inta u dambeysay erayadu nabigu ku celcelinayay waxay ahayd ala istawsu bin nisaa khayran bu nabigu la wardo marka khayr ugu dardaarma shariicada islaamku wayna ilaalisay shariicada islaamku makaanad bay niyeeshay qiimo in niyeeshay diinta islaamka warkan hay'adaha iyo gaaladu ay akhriyaan xuquuqda dumarkan soo saarayna ay leeyihiin waa been waxba kama jiraan ayaka xuquuqda dumarku uga baabiyay oo ku tuntay hay ayaka hooyooyinkood baa cidlo ku dhimanaya oo labadii ubaday dhashay cidlo kaga dhaqaaqeen duq baad arkaysaa iyo oday duq islaam duq laba ay bay wataan
mid caddaan aan ku nidhi ayga maxaad ka wadataa baan ku nidhi aaway dhashaad dhashay wuxuu yidhi dhashii aan dhalay labaan dhalool 18 jir markay gaadheen bay naga tegeen laakiin aygu naga tegi maayo bay igu yidhahdeen waa maxay laana noloshii qoyska iyaka ka duntay iyaka kala dambayntii baa ka baabacdo ka duntay ilmihii ilaahay xaqiisa garan maayaan xaqa labada waalid garan maayaan xaqa jaarku ay leeyihiin garan maayaan xuquuqda qaraabada garan maayaan waayo diintii waxaasoo dhan baraysay ma haystaan iyagu inanka ilaahay diin alislaam buu ina siiyey diintaasi markaa waa diin xuquuqdoo dhan bay markaa caddaynaysaa xaqii ilaahay kugu lahaa bay diintu kuu sheegtay xaqii nebigaagu kugu lahaa bay diintu kuu sheegtay xaqii ninkaadu kugu lahaa bay diintu kuu sheegtay xaqii ilmahaagu kugu lahaa bay diintu kuu sheegtay xaqii jaarku kugu lahaayeen bay diintu kuu sheegtay markaa buu nebigeennu dardaarankiisii muxuu ahaa alaa war dhagihiina fura buu nebigu saxaabada ku lahaa istawsuu binnisaa'i khayra war dumarka haweenka khayr ugu dardaarma buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam rifqan bilqawaariir qaruurad weelka qaruuradda ininkaa naga yaqaanay meel adag baad dhigataan oo ciyaalku aynan gaadhaynin laakiin weelasha balaastiigga aqalka dhulkaas ka dhigtaan oo ilmuhu dhinac walba ha u laaglaagdo ma jabayo weelka laastiigu laakiin weelka qaruurada meel adag baad dhigataan fii xajati alwadaac haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dumarkii reer madiina awrtii ay fushanaayeen ninkii maaragtaane awrta hoggaanka u hayay sugaantii awrta loo qaadayay buu qaaday markaasuu nebigu arkay awrtii oo si fiican tallaabada iskula heshay markaa buu nebigu ku yidhi rifqan bilqawaariir war awrtan waxaa korkooda noo saara waa qaruuradee yay naga jajabine macnuhu yay naga jajabine awrta suugaanta ka dhin buu nebigu yihi socodka ha gaabiyaanoo ha yareeyaane qaruurad sida qaruuradda loo ilaaliyay diinta islaamku inii ilaalisay marka shareecadda islaamku ku tidhi gurigaaga joog oo dharka jilbaabka qaado oo gurigaada ha ka soo bixin oo guri joog noqo marka shareecaddu ku leedahay oo markaad safrayso qof maxrama ha kula socdo marka shareecaddu ku leedahay khiyaarka maaha waxay shareecaddu kaa qaadaysee bal shareecadda islaamku aday ku ilaalinaysaa adiga shakhsi ma tihid caadiya adu gabadhu shakhsi caadiya maaha waa masnac waa warshad gabadh walba haddii la ilaaliyo oo la koriyo oo la barbaariyo oo tarbiyaddeeda la wanaajiyo mujtamac wanaagsan bay adduunyada ku soo biirin anas binu camaar alasmaci ninka la odhan jiray ayaa inankiisiibuu u yeedhay baa la yidhi camaar alasmaci baa wiilkiisii u yeedhay markaasuu ku yidhi aabba anas ow kaalay aroos baa tahay buu ku yidhi caawa ma ka warqabtaa may gabadhiina waa la keenay qaadigiina hadda loo yeedhayaa sheekhii weligeediina wuu joogaa markaa bal dharka iska bedelo dhar fiican soo xidhay baa lagu yidhi waaba caqdigii baa dhacaya caawa aroosadiina waaba la soo diyaariyey aroosku beriga u fududaa innagu imika arooska mashaariic baan ka dhignayoo meherkii baaba laga baxay baqaali baad ka dhigteen arooska haddii la qaaliyeeyo dhallinyaradu inay zinaystaan baad u dhib yaraysa ogow haddii arooska laga dhiga maaragtaan qiimihiisa la jebiyo zinada la dagaalamaysayo ogow haddaad dooni zinadu inay yaraato waa inaan arooska fudaydinaa meherka waa inaan jebinnaa maxaa yeelay arooska uu ka kharash yar yahay buu nebigu yidhi ayuu ka barako badan yahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam zamanka dadku ay fiicnaayeen aroosku wax weynba lagama dhigayn labada waalidunbaa is arkaaya markaaba deedna caqdiga unbaa loo caqdinayay meherkuna wuxuu ahaa wax fudud bal gabdhaha qaarkood qur-aanka in la baro keliya lagu meherin jiray bas kalaamka ilaahay bay odhan jirta ibar suuraddaa ibar markaa yarkii gabadhii loo meheriyey gabadhan loo meheriyey weligii maba aragba laakiin ayaa u soo arkay hooyaa u soo aragtay walaashii baa u soo aragtay habaryartii baa u soo aragtay laga yaabaa eedadii inay u soo haasawday gabadha u soo aragtay labada waalid buu isaguna ku kalsoonaa caqdigii markuu dhacu habeenkii bacdalcishaa'igii leylatu zafaaf ee gabadhii loo gelbiyey oo aqalkii galay waxay noqotay gabadh yaroo gaaban oo isaga maaragtaane xagga quruxda aanan cajabin isaguna nin dheer oo qurux badan oo laankaa la eg buu ahaa dhallinyaraduna waad ogtihiin oo de qof walba wuxuu rabaa qofkuu helayo inuu noqdo qof siduu u jeclaa in loogu abuuruu jecel yahay taana ma dhacaysa markaa gabadhii way ka naxdeen markaa isagiina uu ka naxay gabadhii markaa buu dhulka eego u warwareego waxay ku tidhi ha murugin bay ku tidhi ha murugoon laga yaaba khayr ilaahay inuu kaa soo dhex mariye markaasuu yidhi walle gabadhan hadal wanaagsan baaba ka soo baxee waa gabadh wanaagsan labadaada waalidna cidlo ku dhigi maayaan oo ku dayici maayaan ayakaa kuu doorbidee gabadhan iska bismilaysay buuhi habeenkii u horraysa leylatu zafaafkii markuu ilaahay caza wajalla wuxuu ku arsaaqay wiil bay dhaleen wiil
wiilkaasi wuxuu noqday imaam Malik bin Anas gabadh barakaysan iyo wiil barakaysan markay isku tageen awlaad wanaagsan oo imaam daar al-hijra waad garanaysaan imaam Shaafici muallimkiisii buu noqday imaamkii wuxuu ahaa 50 sanadood ama 40 sano ku dhawaad imaamka boqorka amiirka muslimiintu laga naadinaya xashka la oran jiray magaalada Madiina iyo Xarameynka nin ka fatwa kara ma jiro imaam Malik oo dhex jooga fatwa masaa'il diiniyo oo dhan 40 sano masjidka Nabi Maxamed ninkii wax laga weydiinayay ayaa gabadhii muuminada saalixadu ay ku curuday marka warshada tihiine diinta islaamku markan in ilaalinaysa leeyahay gabadha guriga ha joogto oo qarna fi buyutikunna haday soo baxaysana yudnina calayhinna min jalabibihinna haday meel masaafo maalin iyo habeen loo socdo ay aadaysana mahramkayga hal la socdo marka lagu leeyahay khiyaarka laga qaadi maayo bal adiga lagu ilaalinaya waayo shakhsi caadi adigu ma tihide waxa tahay ma aragtaane warshad masnac dhan oo basharka ilaahay uu ku dhex abuuro adiga kugu dhex rakiban hagaaga aad hagaagtaan waxay ka dhigantaa mujtamacayno hagaagi haday gabdhuhu naga xumaadaan ilaahay nima xumeeyabe waxa dhacaysa marka dhalinyaradii inay yakuna naga xumaadaan marka waxaan ku dardaarmeynaa waa inaad fahamtaan makaanada diinta islaamku ay dhigtay iyo makaanada gabadhu mujtamaca ay ugu jirto makaanadaas ay diinta islaamku dhigtay habeen baa nabiga loo sheegay kaleey salaatu wasalaam oo la yiri niman muhaajiriina ku yiri ya rasuul rag baa dumarka dilaba lagu yiri dumarkoogi bay garaacaan salaade ishaay markuu nabigu fajarkii uu tukaday uu ka baxay ayaa nabigu isagoo careysa muu saxaabada la hadlay marka abu wariyada ay dhageysta buu ku yiri rag baa la ii sheegay reerahooga dila ragaasi ragi kuwaasi kuwii nigu khayr badnaa ma ahayn buu rasuulku yiri akmalul mu'minina iimanan ahsanuhum khuluqa wa inna khiyarukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli ba nabigu alayhi salatu wasalam dhageysta bal xadiiskaas fiican u dhuuxa xadiiskaas Allahu akbar akmalul mu'minina iimanan dadka iimaankoogu uu noqday kaamil ee iimaankoogu uu dhameyska tirmay waa kuwa ugu akhlaaqda wanaagsan buu nabigu yiri kuwa inagu akhlaaqda wanaagsan kuwa inagu khayr badanna waa kuwa reerahooga u khayr badan anana reerahayga u khayr badan buu rasuulku yiri iimaankii waxa lagu xidhay akhlaaq khayr badnidii waxa lagu xidhay in dumarkii reeraha laga warhayo loo samafalo oo loo ihsaan sameeyo ya anana reerahayga u khayr badan buu nabigu u khayr miira nin saxaabada kamida ayaa gabadhiisiiba ku qeylqeyliday xaaskiisiiba ku qeylqeyliday markaa buu wanayo islaantan qaylo badana wayba idhibtee bal wixii islaantan laga yeeli lahaa Umar kala tasho marka Umar ibn Khattab uu yimid marka wuxuu maqlay marka Umar oo isagana islaantiisi ay ku qayliyso ay leedahay sidana tahay ninkii baa marka maqlay Umar oo la haysto wuxuu yiri warniyo taadu waa sahalay hayda amiirkii dhanay muuminiinta ba la haystaaye marka uu iska noqdo Umar baa arkay nin sii socda oo ka daba hadlo wuxuu war soo noqo war hebelow soo noqo uu soo noqday marka Umar baa ku yiri maxaa la noqotay buu wuxuu yiri amiir al-muuminiin wallahi ashkataana haayo reerkii baa igu qaylo batayo islaanta heblaayo wixii laga yeeli lahaa inaan kala tashadaan u socdo laakiin wixii aniga ay haystay wax ka daran ba adiga ku haystay buu ka yiri qayladii aniga la igu hayato ka daran baba lagu hayaaba umaad maqlaysi hawaan maqlay buu ka yiri wuxuu yiri dhageysa buu yiri dhariga ii karisa buu yiri dharkayga ii maydha ciyaalkayga ii korisa aqalkayga ii hagaajisa qaraabadayda ii soo dhaweysa ubadkayga naaska ii siisa waxa soo dhan waa macruuf wuu waa macruuf waajib kuma abuudi xaqan kulahay ma abuudi waa macruuf ay sameynaysa miyaanan inta yar kaliya anigu aan u adkeysan karin buu ku yiri dadkii xaqiina yaqaanay dadkaas ay haayeen marka zamankeenan innaka maanta wax walba way isbedeleen sidii adduunyadu isku bedeshay ayaa dadka dabeecadoodii way isbedeshay dumarka qaar fiican baa jira qaar aan fiicnayn way jiraan ragana qaar wanaagsan baa jira qaar aan wanaagsanayn way jiraan marka waa inay noqoto nolosha waa inay hesho marka balance isku dheelitir oo reerka qoysku ama dulqaadka gabadhu ku joogaa baa la yiri ama dulqaadka ninku reerku ku joogaa marka waxaan igula dardaarmaynaa inaad noqotaan gabdhihii reeruhu sababtooda ay ku jireen inaad noqotaan oo ubadkiina korsataan oo gabadha muuminadu baa la yiri
لباتن خصلة ضد علماء أي كل شيء كان قبل مؤمنة وين إلى 20 خصلة رب جد بيتقانا بالله بعلاقة لا ده سيله علاقة ولا لا ده باهذا يقبت حتى إنك إذا ومش يقت إلهي بوش يقتها إنك وإما كوح الله جاي أبا وح اللي وحي ونبه نوضع ويدنا صبا والنقصان قبل مؤمنات الصفات كاللغو يقان وامحي حتى باهذا يقبت إنك إذا وكقرسن بالله ساعدها الله جيفها بينك إنتك عدا إلهي باهذا إذا وش يقان وقبل مؤمنات عفيفة صلاتنا أقل كذا يكون تحت كتاك ما بحثه أقل كذا وجنة ير جنة هذه أدونك جرتبا ليدي قبل مؤمنات الصالحات أقل كذا جنة نيكو قولوا لي أقل كسوق لي وين أقل كوكو قبوبا سكين تجارة دي أما قناع سقي أما الدنيا دي نيكو مقنع بوق يا ورير يا قيلو يا ولو يا وحيابا بدن بكرة سوق المدي بدي أقل كمركو سوق على مركا وينو جنة أقل كوجي ماذا قبل دي سيو قروح بدن رشيو قروح بدن أقل كيو قروح بدن هذا القبو قعم فرن قلب فرن وينو أقل كودر ما ينو جنة على مركا هذا كليل كيد بدأ وكجي مد كليل لما ده مسكين أقل كوجي ماذا ده مركا يسوون وانفجار وقرح مركز وحيابا هيرو كبر برانا تاسع كمدا هذا إنين كذا wanaag iyo khayr ay kala kulantana ilaahay bay ugu shukridaa baa la yidhi hadday wax dhiba ay ku aragtana way u sabirtaa baa la yidhi ceebta ninkeeda ay ku aragta baa la yidhi bannaanka uma bixisa way qarisaa gacantaadoo bugta waa gashaa la gashaa dadka Soomaalidu hadda ninkaaga ceebtiisa iyo nuqsaantiisa qaraabadaada jaarkaaga aad u sheegtaa waa kaanaka adaga ceebtaadii bannaanka u saaray ka dhigantay ilaa ninkan adiga ayuu ka mid yahay waa noloshaadu kula qaybtama adiga marka gabadha muuminadu waa cafiifad hadday ninkeeda wax wanaagsan kala kulantana waa ilaahay bay ugu mahadnaqi asagana waa u shukrin hadday dabeecadiisu ay aragtay inuusan fiicnayna waa iska sabriyo ilaahay bay baryi hadduu ka maqnaadana baa la yidhi way murugootaa hadduu guriga u soo galana way ku faraxdaa iridda markuu ka sii baxayana way sii eegtaa baa la yidhi itra ilaahu ilaali wayna waanisaa gabadhii saalixadda salafka ka mid ahayd ninkeedii markuu shaqo tegayey ayay ku tiri war xaggaad u baxdo wuxuu yidhi waa noo xoogsi tegayaa oo quutalyoon baan noo soo raadinayaa markaa bay ku tiri aniga dhashayda ilaahay nagaga baq naarta aakhirada waanu adduunyada gaajadeeda waan u adkaysan karnaa laakiin naarta aakhira u adkaysan kareen mayna luqmad xaaraana aqalka iga soo gelin bay ku tiri halkeen kala joognaa maanta innaka iyo kuwaasi aniga dhashayda gaajada adduunka waan u adkaysan karnaa bay ku tiri laakiin cadaabka aakhira u adkaysan kari mayne ilaahay ka baq bay ku tiri ma aragtaane wax ubadkayga cadaabna geeya hanoo keenin bay ku tiri marka akhawaati wa banaati waxaan igula dardaarmaynaa inaad guryihiina ka dhigtaan janno salaada ku dhex tukataan quraanka ku dhex akhrisataan ubadkiina dhaqanka wanaagsan ku barbaarisaan jaarka xaqooda iska ilaalisaan aad aqalkaagu noqdo masaajid ilaahay aad kaga xidhan tahay adiguna ilaahay ku xidhnow dhashaadana ilaahay ku xidh dardaarankayga insha allah waan taasaan kusoo gaabin ilaahayna inagu anfaco wa kuwaana qaatay ee ku dhaqman allah inaga yeelo sala allahuma calaa nabiyina muxamed